dhamaantiin waa salaamantiin. Ani waxaan u istaagay qodobo kooban marka ugu horeyso waxaan rabaa qodobka 23aad faqradiisa afaraad inaan codkayga ku biiriyo gabdhaha Soomaaliyeed xuquuqda iyo xaqa ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda gaar ahaan gabdhaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaheena sharafta leh ee golaha ku jira 13 ah ee runtii codkoodu hadda ku midaysan yahay in ay qodobkan soo jeedin ay ka keenaan ka duwan mid halkan ku qoran codkaygan ku biirinayaa marka waxaan ku taageerayaa oo aan cod dheer ku leeyahay waa in kuraasta gabdhaha doorashada dalka sida dastuurka waafaqsan oo hore u sheegay dhammaan laamaha dhan ee dalka ee laamaha dawladda garsoorka iyo fulinta iyo laanta sharci dejinta sidoo kale laamaha dawlad goboleedyada in laga qayb geliyo gabdhaha oo doorashadoodu iyo ka qayb gelintooduba ay cadaato si sharci ah oo aan mugdi ku jirin. Intaa kadib waxaan rabaa inaan baaq kale u diro isla gabdhihii gabdhaha waxaan rabaa oon ugu baaqayaa arrinta ay soo jeediyeen ee ah inay helaan koota sax ah inta laga gaarayo dad ku shaqeeya nidaam mabaadi' ah oo xisbiye leh oo ay si siman muwaadiniintu u tartamaan sida dunida kale hadda horumarsan. gabdhaha codkaas dheer oo qaarkood laga maqla waxaan usoo jeedinaa inay ka noqoto mabda oo aysan ka noqonin sidii hore loo arkay. baaqaygu kuma jihaysna oo kaliya gabdhaha baarlamaanka, baaqaygu wuxuu ku jihaysan yahay gabdhaha guddiga doorashada ku jira, baaqaygu wuxuu ku jihaysan yahay gabdhaha golaha wasiirada ku jira, baaqaygu wuxuu ku jihaysan yahay gabdhaha Soomaaliyeed ee ka qayb qaadan doona codaynta iyo doorashada soo socota siday rabtaba ku dhacdo doorashadaas. haddii markii baarlamaanka la joogo waxaan soo aragnay oo ay gabdhuhu dhammaantood markhaati ka yihiin in guddiyada markii la dooranayo aysan isu codayn, gabdhuhu isuma codaynin. dhaliishaas gabdhuhu waa inaan shacabka Soomaaliyeed ay maqlaan aan rabnaa. guddiyada markii la dooranayo labada gole gabdhaha ku jira baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed gabdhihii kale ee guddiyada u tartamaya uma codaynin, meelaha kale ee laga tartamayaan uma codaynin. doorashadii 2016 ergooyinkii odayaasha dhaqanka soo xulayeen qaybtoodii gabdhaha ahayd haddii wiil iyo gabar ay tartamayaan wiilku uu jufadooda yahay wiilkay u codaynayeen uma codaynaynin gabdhaha. sidaas daraaddeed waxaa la rabaa gabdhuhu inay arrintaas u qaataan si mabda ah oo aysan u qaadan si activism ah oo ololeyn ah oo adduunyada sheegtay iyo UN-ka yiri iyo hay'adaha caalamiga ah yiri ma ay xuquuqdiina inay tahay horta inaa u qaadatiin ayaa sidaas layn ka rabaa. waxa waayahan soo badatay siyaasaddii Soomaaliyeedna dhammaanteed harisay mabda dibnaha saaran ee aan jirin qalbiga oo dadku aaminsanayn. waxaa kamid ah arrintan hadda maanta aan ka hadlayno oo ay kamid tahay matalaadda gabdhaha odayaasha dhaqanka culimaadudiinka bulshada qaybeeda kala gedisan waa in si dhab ah looga dhabeeyaa gabdhaha Soomaaliyeed inay ka qayb galaan doorashada oo ay helaan kuraas ay ku matali karaan qaybta ay uga jiraan bulshada dalka iyaga dan u ah waxqabadkooda iyo horumarkoodana horaan u aragnay. waxaan rajaynaynaa gabdhuhu inay heli doonaan kaalin buuxda iyaguna ay kaalintooda qaadan doonaan si mabda ah ku dhisan iyaga oo ololahooda ku geli doona. waxaa lamid ah oo senatoralkan hadda ka hadlay uu ka hadlay arrin uu yiri ma filayo doorasho inay sharcigan uu yahay doorasho dhab kii doorashada lagu geli lahaa. dalka dibnaha ay mabaadi wax badan saaran yihiin oo mabda u laabta ma jiro. maxaa yeelay in badan waxaan maqashiina u malaynayaa midnimada dalka iyadoo la leeyahay Soomaaliland maaragtay midnimadii dalka oo markii meelaha jooga laga hadlay kaliya ma arkin siyaasi muctabar ah oo credible voice leh
oo ka hadlayo le Somaliland midnimadii way maqan tahay waa in la keenaa meelaha marka la joogo sida meelaha qaar salaadaha munaasabadaha loo tukado ayaa iyagana loo sheegaa marka midnimadu dibnay saarantaa ma aha laabta ma jirto maxaa yeelay guddi muctabarana lama dhisin oo sharcina looma samaynin Somaliland iyo midnimada dalkana cid danaynaysa ilaa hadda lama hayo waxa citizenska dalka waxa citizen loo yahay qabiilka ee dalka citizen looma aha sidaas darteed doorasho qof iyo codaha la qabanaya dibnay saaran tahay laanta fulinta Soomaaliyeed ee dowladda federaalka ah waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto dhab kama ahan dalka in qof iyo cod ay ka dhacdo haddii ay dhab ka tahay maanta waxaan rabaa hortiina inaan ka sheego maxkamadda dastuuriga ah ee aan looga maarmin waa in la arkaa toddobaadka soo socota iyadoo hawsheedii la galay maba la samaynaayaba qof iyo codaa loo baahan yahay iyo doorasha loo baahan yahay mana laga shaqaynaayo yaa ka shaqaynaya cid ka shaqaynaysa male midnimada dalka la rabaa qof ka shaqaynaya male gabdhaha Soomaaliyeed xuquuqdooda inay helaan la rabaa qof ka shaqaynaya male sharcigii kufsiga la sameyn lahayd oo gabdhihii Soomaaliyeed maalin kasta lagu kufsanayaa wado kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kasta waxaan rabaa halkan aniga qayban ka ahay eedas qayban ka qaadaya oo kaligay hadda aniga kama marni oo shacabka kama tirsani waxaan ka tirsanahay mudanayaasha ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay mabaadiida dibnaha saarani waa biwaji Abi Bakrin wa qalbi Abi Lahab waxaa la rabaa inay si cad u cadaato oo mabaadiida qurxoon oo la sheegayo sharciyada lagu qoro laanta fulintuna ay ka shaqayso oo ay ugu horeyso maxkamadii dastuuriga ahayd in la sameeyo adeegii guddiga garsoorka in la sameeyo in laga shaqeeyo wax alla waxa dalkan maanta uu u taagan yahay waa in laga shaqeeyaa ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo in badanna aan runtii halkan ka sheegay dalka Soomaaliyeed waxay ahayd in hal shaqo laga qabto dawladdu ay ka shaqayso dawladihii ka horeeyay iyo midamba waxay ahayd in laga shaqeeyo dastuur oo keli ah dal aan dastuur lahayn wax maanta uu u qabsoomayo haba yaraatee ma jirto waxaan codkayga mar kale ku beerinayaa guddigii baarlamaanka labadiisa gole ee u igmanaa dastuurka samayntiisa iyo kii madax banaanaa waxaan xogta ku haynaa warbixinteena soo gaarsiiyeen inay dastuurka intii tabartooda aad soo dhamaystireen waajibkaas wuxuu saaran yahay baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed laanta fulinta ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxaan halkaan uga dirayaa madaxweynaha baaqa madaxweyne dal aan dastuur lahayn ma taabageli karo state buildingkiisa dowladnimadiisuna ma socon karto sidaas daraadeed dastuurka in aad horkacdid oo dastuurka dalku uu noqdo mudaxilaadkan dhiman in la ansixiyo ilaa hadda dalku waxaan soo maray kaliya hal dastuur oo dastuurkii 60ka ahaa oo dowladii xilligaa joogtay madaxweyne aadan cadde uu ku guuleystay in uu referendum geeyo baarlamaankii xilligaas joogana inuu muddo bila oon kala go' lahayn u codeeyay ansixiyay baarlamaankuna baarlamaankii 60kii inuu noqdaa la rabaa madaxweynuhuna kaalintii uu qaatay madaxweyne aadan cabdulla cusmaan Allah u naxariisto kaalintiisii oo kale inuu qaataa la rabaa haddii kale waxaa cadaanaysa mabaadi dibnaha saaran oo midnimo rabnaa democracy rabnaa xuquuqda dumarka rabnaa sinaan rabnaa garsoor cadaalad rabnaa intaasba waxaan rabnaa in lagu muujiyo ficil aad iyo aad mahadsantiin mudanayaal Senator Abdul Mawlid Hussein Bahar.